السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada Soomaali Maxameday marka hore haduu muuqaalkan ku soo gaaro waxaan soo xushmada ku dhaxanta kaaga codsanay inaad channelkayga subscribe aad ku sharaftaan inaad share gelisan like iyo comment-gana aad isoo raacsan. waxaan rabaa inaan ka hadlo xaqiiqda Somaliland waa Soomaalidka Somaliland magaalada Laascaanood maxaafada kamid ah bay haystaan inaan ka hadlaan rabaa. marka hore intaan mawduuca u gudagelin waxa ay daawataan كلمة intaan goob xun ku kacay intaan baadi goobka curdama xasku maray gabadana qabowga waata waxaan rabaa xalqada kaliya kan ama muuqaala kan aad daawateen inaan idinka dabageeyo dadku baraha bulshada isla dhex wareegayeen magaalada Laascaanood waxa xaafad kamid ah haysta oo maamula وويلش جوج عاد كجرا يقيدن كسومالان موسى دقو سو خلday xaqada rabna inaan dul istaagno horta ciidanka Soomaaliland xaafad ka tirsan magaalada Laascaanood horta ma haystaan oo kama taliyaan oo ma maamulaan dhowr kan guri oo isku soo duubayaan oo ay dhex wareegayaan intaas waa dhowr guri ilaa 3-4 guri gooja cad u sijir hadda kelibka dad ku daawatan guriyaha waa tirin kada 1 iyo 2 iyo 3 waa dhig kada waa 2-3 guri oo gooja cad ku sijira waxaan tusaale idin iska dhigayaa magaalo kasta marka soo galisaan oo dhinaca magaalada aad ka soo galisaan maxaad ku soo gashaan magaalada geeska marka magaalada laga soo galay 3 guri 2 guri qol meel ka taagan musqul iyo ceel iyo dayr leh oo magaalo kasta dhinac qashish marka laga soo galaayo hatta magaalada meel 10 kilomitir ka baxsan oday intuu meel bagcad qabsaday oo qol ka taagtay habari meel ka taagatay halkaas yaa lagaaga degin ay u dhisteen baan idinku tusaaleenay 3 guri oo dhinaca magaalada laga soo galo gaar ahaan dhinaca gooja cad u sii jeeda horta waaye guriyahan ay isku soo duubaan oo ay soo galaan oo kilibiyada ay ka soo duubaan waxaana dadka Soomaaliyeed inta halganka daacada ka sii jaa wareeriyo oo buuq iyo roosh shoobaraha iyo madaxweynaha gurigaya waa qaaqlayaasha wiilasha Facebook America iyo Yurub iyo qurbaha iyo dibadda ka soo qaaqlaya war xaqiiqada anaga na weydiiyay anaga Laascaanood joogna 7 bilood xabad dhac ana dhex taagan ana jooga Laascaanood kama dad baan arkay kuwa arkay dhaaya halakan wadiif waagi gobolka fiiriya oo jinni isku riday aad igu soo dirdilay waa ku qosr marka dadka yaa la jaha wareerin wiilasha yarirka waliba wiilka wax soo dodo waa wiil yar oo TikTok kala oo musabbix soo khalday mar aan daweyna madaxiisa waa inuu tusi doonaa taatika loo dadiyay halka inaan ka sheego marka magaalada Laascaanood sa ogtihiin cidin la ka warhayso oo og waa magaalo buuro ay ku wareegsan yihiin gooja cad shaqaysa buuro fara badan baa ku wareegsan meelo yar yar wixii leeyihiin jeexjeexa marka laba buuro dhexdooda gaar ahaan qayb gooja cad ku sii jeedo de gooja cad ayaga haysan nimanku anaga haysan anagu ma dhahayno gooja cad ciidanka Soomaaliland baa haysta taama diidani marka la qabsado maray doonta ahaatay oo aan fogeyn shaqada koowaad oo aan qaban doono waa inaan guryaha soo duulo fiiriya halkan ay ku yaaleen waa intaas oo guri magaalada Laascaanood waa taas ilaa maanta baraha bulshada soo weeyay waliba muuqaalatan had ugu horeyso muddo way soo duubanayeen TikTok gimi soo gashay dadka hadda ku baraarugeen maarsi haddana waxa dadka ku baraarujiyay waa dadka munaafiqada ka shaqeeyay oo wiilasha YouTuberada oo dibadda jooga ayaa waxaan soo faaqaday dadka kuwa barisi indhaha hadda u shiday muddo waa soo duubanay wuxuu maray calanki foosh xumaayo gogarado ay ka taagtaan mar ayagu guriga galaya mar ayagu dhex fadhiya waa isku soo duubaya marka waxaan rabaa muuqaalka xaqiiqadiisa waa inta idin sheegay waa 3 ilaa 4 guri oo dhanka gooja cad ku war hadii ay xaafadan haystaan may soo sawiraan xaafadan oo wadooyin leh oo shaaric leh oo leerir ka taagan yihiin oo wadooyin highway leh oo ilaahu beerka beel sida anu xaafada Laascaanood dhex marno ilan waa la yaqaan xaafad maxaa lagu yaqaanaa wadooyin waaweyn leerir meesha ka taagan albaaba waaweyn ilaahu beerka xaafad iyo saal lagu qabto oo kaliira hadda muuqaalka badii u daawad waa kan waa tirin kana muuqaal inta guriyihiin waa 3 guri إلى أفر قولي أو قبيعة
oo mid horta guryaha kamid ah waaba dayr weyn baa lagu yiriyo waxa in gawaarida iyo baabuurta iyo qalabka ku xariisan jiray nin wuxuu ka shaqeeyaa wadooyinka laascaanood oo nin dhul bahanta ah oo halka gooja cad ku sii jeeda meel waa la yiri wuxuu ku leeyahay in boqol dhul ah koriyaan dadka la jaah wareerin laakiin baraha bulshada ka qayliya oo youtuberada ah oo inta qaarlaas caana bar la haysta xaafad baa la haysta hadii xaafada la haysto ciidamada isku soo sawiri lahaa ayagoo dhex maray hal wiil oo youtube to kara waa hal wiil oo tiktok kara yaan dadka la jaahwarin anaga xaqiiqadana weydii ha dhageysanina ciyaalada youtuberada oo dibadda caruurta caanahoodii youtube-ka kala soo baxa anoo youtube lacag kama raadino views kama raadino laakiin xaqiiqada afar qol oo gooja cad ku sii jeeda maraan fogeyno waa la qabsan doonaa gaar ahaan waxay gooja cad kaga sii yaalin haddaan warka idiisi balaariyo meesha ateen kala dhaho oo ay haystaan oo ateenada loo yaqaan reer laascaanoodka u yaqaan iyo warshada biyaha aageeda meel saan uga laabno buurta ka sii jeeda waana meel laba buuro dhexdooda ah waa xaafad saa u laaban hadda saaki maxaa u dambeeyay saaki meel qarqara oo area aan guriyo ku yaal aan sheegayno bay wixii iska soo dusiyeen qorigii magaalada soo dhacay kadib maadaama meesha ku soo dhuman karaan goor tahay ama jeer qof soo yaqaan fikir baadiyaha aad u garanayeen kadib ciidamada xaqu-dirka SSC ayaa tactica waxay heleen qoriga meesha ka soo dhacay iyo cabirkiisii bay heleen kadibna waxa dhacday in meeshii qoriyo waaweyn loo rakibay sida suuyo hoobiyaal kadibna ay gaarigooda la baxay sidaas ay meesha uga tageen marka aad iyo aad baan islaamaya yaan lagu jahwareerin ilaasha beenta baraha bulshada wareega ee youtuberada ee dadka leer laascaanood iyo qurbo joogta iyo dadka hartiga oo halkanka daacadda ka niyad jabinayo dhaha qardo laascaanaha xaafad kamid la haystaa oo Somaliland baa haysata 8 bilood wixii la qabanayo waa ka yaan la rumaysan warkii aan idin sheegay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Channelkayga subscribe.